kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Haddaba kulamadii caawa la ciyaaray iyo maanta oo ay Chelsea si weyn u xasuuqday kooxda Wolves 6-2 ayay dhagax kaga garaacday. Chelsea ayaa waxaa la arkayay kulamada ay Wolves la dheelaysay maanta in natiijo aad u weyn ay markaasi ka gaartay iyo guul aan lama filaan ah oo aan la filanaynin. Haddaba sidoo kaleeto Liverpool ayaa 2-0 ku garaacday kooxda Brentford. Sidoo kale Liverpool iyo weliba kulamadii laga ciyaaray La Ligaha oo ay Real Madrid ku fardabaxday Real Vallecano oo 3-0 dhehe ay cagaha kaga dhifatay. Haddaba Real Madrid caawa waxa ay garaacday Real Vallecano oo ay markaasi 3-0 ay ku garaacday, halkaasi oo marka ay ciyaartu ay dhamaatay ay si weyn u dabaaldegeen ciyaartoyda da'da yar ee markaasi kusoo biirtay dhowaan sanadkan ciyaarta La Ligaha ee dalkaasi ay Spain ay Real Madrid ay ka ciyaareyso. Haddaba maxay kula dhigan tahay kooxda Real Madrid iyo weliba natiijada ay gaartay caawa? Liverpool oo iyadana natiijo lama filaan ah ka gaartay horyaalka dalkaasi Ingiriiska kulamadii maanta la ciyaarayay. Laakiin Chelsea ayaa waxa ay dadku inta badan isleeyihiin maanta guushii wacdarada ahayd ay dhigtay in ay markaasi awoodii iyo quwadii ay ku lahayd Premier League in ay dib ugu soo laaban karto. Haddaba maxaad ka qabtaa ama fikirkaagu uu yahay kulamadii maanta la ciyaaray natiijooyinka Chelsea, Real Madrid iyo weliba Liverpool ay ka kala gaareen Premier League iyo La Ligaha? Fakirkaaga waa inoo muhiim. Intaan barnaamij karo kale intaan dib ugu kulmi doono waa saaxiibkiin Baariyo oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.